wixii baa la qaban waayey okay waxaa soo baxday arrin kaloo qabanaysa kooxda liverpool una diidaysaba horyaalkii 30 sano ay sugayeen oo ahaydba inay ku farxaan laakiinse taas waxay noqotay coronavirus oo aan bal aqoonba adduunka uusan aqoon ayaa yimaaday taageerayaasha ku maadsanaya liverpool waxay yidhaahdeen sabab darteed inaad koob ku guulaysataan yacni inkaarta idinka haysata waxa la soo diray adduunka loo soo diray wax aan la garanayn oo meel ka socda la garanayo coronavirus la yiraahdo baa loo soo diray sababtuna waxay tahay waa sababta ugu fiicnayd yacni meelna waanu ka xunnahay inuu dad ku dhaco laakiin meelna waanu ku farxaynaayo idinkiinaan doonayna inaad neef fariisataan ma idinkaasaan daawan karnaa idinkoo taageeray isku soo baxay oo doonaya u dabaaldegaya horyaalka Premier League ma idin daawan karnaa la yiraahdo maxaa yeelay ogsoono waa taageerayaasha ugu xamaasada badan ee Premier League wayaan ragaan Liverpool yiraahdo yacni magaaladii bay ku soo wada baxayaan oo iyaga dhan wada guud bay noqonayaan oo garaash wada guud bay ka dhigayaan oo meelihii dhan bay wada guud ka dhigayaan marka waxaas wax la daawan kara maaha City-na ma daawan karo United inkastoo City ay garab la noqotay oo yacni wariye ka mid ah kooxda City wariye ay leeyihiin Manchester City ayaa markaasi ka hadlay arrinta ku saabsan bal haddii Liverpool ay macquul tahay in la siiyo koobka horyaalka Premier League maadaama laba ciyaarood oo kaliya ay ka dhiman tahay nimanka marada laga riday wariyaan nimanka hanay jabininu yiri ciyaarta ka daayay fikirka aad ku haysaan aad leedihiin marada ka dhacayso yacni wax koob la siin maayo بلاش بكسو عيارين كدا يعني waxa weeyaan raga waxa weeyaan niyada ka jabnaan uu leeyahay waxaanu jeclahay bir Liverpool in koobka la guddoonsiyo wariyaha kooxda City weeyaano laakiin sidoo kale waxa kula biiray koobka kooxda doonay urwa kuwaas oo hadhow baan ka hadli doonaa ya marka balaanu fiirino kooxaha inkastoo barnaamijkan uu yani kaga hadli doono kuwaani ya kooxaha xilaareedkan bal la doonaya Liverpool in maradu ka dhacdo iyo kuwa kale toban kula ugu siinaya maxaa dhici doona inta ka hartay xilaareedka Premier League kadib markii hakad la galiyay oo loo galiyay sabab darteed in caabuqa coronavirus-ka oo dadkii yacni afaarooda soo galay siday haatan waxay yihiin Premier League waxaa la filayaa inuu dib u bilaabo oo yacni tartanku bilaaban doono bisha Abriil laakiin taasi u muuqato wax suurtagal ah maxaa yeelay bisha Abriil waa batanba mardhow way soo galaysaa coronavirus-kiina waa kan ka darayga ku noqonayo yacni kooxihii oo dhan qaribaya sidaas darteed ma gebi ahaanba ma la kansanaya xilaareedka iyadoo kooxna aan koobka lagu guddoonsanin mise waxaa la isku dayi doonaa in 9 kulan ka harsan la dhammaystiri doono yaa si kastoo ay noqotoba si kastoo la iskugu hindhisaba tartanka ma la dhammaystiri doonaa mise lama dhammaystiri doono haddii aad u bareertataa yacni dad badan baa la seexan doona oo la dhihi doono way seexseexdeen waana balaayarintii khatarta ahaa maalinta khamiista ayayna 20 kooxood Premier League ka yacni ka arrinsan doonaan sida wax laga yeeli doono haddii horyaalka uu si dheeraado iyo haddii uu la joojin doonaba kooxaha uu codayn doona ay kooxaha ayaa u codayn doona haddii gabi ahaanba la baabinayo xilaareedka oo laga soo qaadayo inaan gabi ahaanba la ciyaarin tartankan yacni horyaalba inaan la ciyaarin yacni horyaalba lama ciyaarin baa niyadda laga saara yacni tartanka dhammaan la soo ciyaari niyadda laga saara haa iyo in markaas la sii ciyaaro la dhammaystiro ayaana kooxuhu sidaa u codayn doonaa 14 kooxood ee codkooda ayaana loo baahan yahay in si loo baabiyo xilaareedka yaa haddii la baabinayo 14 kooxood loo baahan yahay haddii aan la baabinayna yacni waxa lagu weysaas loo baahan yahay waa kan marka kooxaha doonaya in la baabiyo oo laga soo qaado inaan tartankan la ciyaarin waxa ka Arsenal Aston Villa yaa marka waa kooxaha doonaya sidaas waxaa ka mid ah Arsenal baa ka mid ah Aston Villa ka mid ah Bournemouth baa ka mid ah Brighton baa ka mid ah Chelsea Everton Man City Newcastle baa ka mid ah Norwich City baa ka mid ah Southampton baa ka mid ah Tottenham Watford West Ham intaasoo kooxood waxay doonayaan in tartanka la soo gabagabeeyo oo la joojiyay doonayaan oo la gabi ahaantiisaba laga soo qaado inaan la ciyaarinba yaa wala warbaa u yaala Liverpool kooxaha doonaya in xilaareedka la dhamaystirana xilaareedka dil dhamaystiro Liverpool baa koobka qaadaysa oo wada ogtoon tayba balniyo wax yar badil Everton la ciyaarto waa kan waa isku dhamaatay marka yani Everton hadii la ciyaarto Liverpool waa kan yaa guuleysanaya marka kooxaha doonaya in xilaareedka la dhamaystirana waxay kala yihiin Burnley Crystal Palace La City Liverpool waa Liverpool baa doonaysa ay lafsaanteeda doonaysa Sheffield United Wolves todobada koox baa doonaya in horyaalka la dhamaystiro halka 13 kooxood kalena ay doonayaan in la dhammaystirin taasoo ay doonayaan dhabar weyn ka jabiyaan Liverpool ogsoonoona 14 kooxood baa loo baahan yahay si horyaalka loo joojiyo oo looga soo qaado inaan gabi ahaanba la ciyaarin 14 kooxood ay soo baxaan cancel baa laga dhigayaa horyaalka Premier League oo Liverpool isku diyaarinaysay oo ma arki doonto haddii laakiinse horyaalka kooxuhu isku raacaan in la dhammaystiro Liverpool baa hore ka guuleysanayso waa ka walla Liverpool ay warkaagu waa waalaya ka war yacni warkaagu waa nagu batay ka war Liverpool warkaagu waa nagu batayo sababtu nagu batayna waxay tahay ayaantan waanu leenahay Liverpool ma qaadan doonta ma la siinaya lama siinaya miya mase waa la siinaya baan ku haynaa
goorma naga soo dhamaystirmaya warkaagu waanu garan la-aanahayba liverpoolay laakiin aanu aragno bal khamiista wixii warkaas ka soo baxo iyo raggan premier leaga bal waxyaabaha u qaabilsan bal warkay kasoo saari doonaan iyo webiga yaa weyn markaani waxaanu fiirinaynaa bal waxyaabaha ugu muhiimsana maanta sportska waxaa ka mid ah oo doonayso inaad dhegaysato waxaa ka mid ah bal xalka laga gaaray sidii loo dhamaystiri lahaa bal champions leaga iyo europa leaga see looga fakaraa guryaha dhexdiisa maa lagu dheelaa mise see lagu dheelaa champions leaga iyo europa leaga ma dhudhuumasho baa lagu ciyaarayaa mise waa loo bareerayaa bahalkani coronaviruska la yidhahdo ee hawada soconaysa si balayrintu iskugu hinaysaanba qaar ayagoon qabin baxda maqlaysa waa qabaa lagu leeyahay waxaana ka mid ah ragyaal badan baa soo baxayo valencia waxa lagu leeyahay 5 player baa laga helay Sampdoria 6 baa laga 5 iyo meelahaas laga helay war khiyaartii maradii waa ka wada dhacdayba waayahay iyadoo caabuqa coronaviruska uu hakad geliyay dhammaan dhacdooyinkii sportska iyo UEFA ayaana ka fikiraysaa qaabka ay ku dhamaystiri karto xilliyeedka Champions League iyo Europa League qorshaha ay dejisay ururka kubadda cagta Europe ee UEFA ayaa in semifinalka iyo finalka tartan walba lagu ciyaaro hal magaalo 4 maalmood gudahoodna iyadoo kaliya hal kulan walbaba hal lug markaasi la is arkayo yacni kulan walbaba hal lug baa la is arkayaa kayba hor meeshan kugu soo celiyo qorshaha ay dejisay UEFA ayaa in semifinalka iyo finalka tartan walba lagu ciyaaro hal magaalo 4 maalmood gudaheed baa lagu ciyaarayaa kayba iyadoo kaliya hal kulan walbaba yani hal kulan hal lug baa laga dhigayaa yani ma jiro home away ma jiro barnaamijkaas baa soo baxaya magaalooyinka Istanbul iyo markaasi Dansk ayaana markii hore loo xushay inay martigeliyaan finalka Champions League iyo Europa League iyaga ayaana martigelin doona semifinalka iyo finalka 4 maalmood lagu dheelayo wadarka jiray in waqti badan ay qaadan doonto yani finalka iyo finalada iyo waqti badan ay qaataan agaasimaha tartanka UEFA markaasi Marchetti ayaana qorsheynaya oo qorshahan hor dhigi doona 55 xubnood ee ururka marka ay shir isku yimaadaan talaadada ka hor inta aysan markaasi u cadeynin waqti xaadirkan UEFA ayaa muhiimad weyn siinaysa sidii lagu soo gabagabayn lahaa wareegga 16 ee Champions League iyo Europa League kuwaasoo hakad la geliyay isbuucan wareegga sedmaadka ayaana isna noqon doona kulan hal lug ah iyadoona markaas lagu ciyaari doono ground dhexdhexaada ama markaasi waqtiga nasiib lagu qaban doono kooxaha martida loo noqonayo in markaasi in semifinalka iyo finalka lagu ciyaaro 4 maalmood gudahood waxay fursad siinaysaa horyaalka Yurub sida Premier League horyaalada Yurub aan ku dhahay sida Premier League La Liga Serie A iyo Bundesliga iyo Ligue 1 in iyaguna dhameystiraan xilciyaareedkooda oo qorshaha noocan isticmaalaan yani waa ka yani qorshaha aan ku dhiganayo yani sidaan ay ku dhameystiraan in adag ay sameeyaan qorshahan waxa uu sidoo kale diiradda saaraya dhaqdhaqaaqa taageerayaasha kubadda cagta iyaguna kaliya u safri doona laba magaalo bedelka u safri lahaayeen magaalooyinka caalamka u safri lahaayeen kaliya laba magaalo waana Turkiya iyo waliba kooxda iyo wadanka kale iyo magaalada kale aan ku dhahay labadan magaalo kaliya u safri doona taageerayaashu ay daawan doonaan kulamadooda halka ay adduunka u kala safri lahaayeen adduunku halka wada virus wada noqon lahaa halkan ayaa jira lagu leeyahay oo doonayso inay hor dhigto waayahay kontonka iyo waliba intaas xunood oo doonaya inay maalinta talaadada ay ka hadlaan bal sidii laga qaban lahaa tan ayaana u badan tahay in loo soo saari doono waayahay warkani wuxuu ahaa ama markaasi barnaamijka hadda aan kaga hadlayo kii ugu muhiimsanaa ee markaasi sportska ee maanta yacni aanu kaga hadli lahayn waayahay markaani waxaa United baa la leeyahay sabab waxay u noqotay coronavirus inuu markaas la ganaaxo oo lacag ay soo gaarto Manchester United ayaa halis ugu jirta inay ganaax lacageed wajahdo haddii ay u soo bixi waayaan Champions League 2 sanadood oo isku xigtay ay u soo bixi waayaan lacag baa waajib ku noqonaysa taasoo si dhibaato weyn ku noqon karta haddii xilciyaareedka la baabiyo caabuqa coronavirus dartiis loo baabiyo oo maxaa yeelay haddii la baabiyo yacni iyadu waxa weeyaan kuma jirto ka 4 sano kuma jirto oo kama soo qaybgali doonto inkastoo City yacni wararkeedu soo baxayaan oo la leeyahay City baa yacni championka laga ganaxay iyo waxaas laakiin iyagu rafcaan bay dalbadeen rafcaanka aanu aragna wixii ka soo saara heshiiskoodii 750 milyan oo gini ay kula jireen shirkadda Adidas andhehe ee u sameeyso maaliyadda waxaa ka mid ah qodob dhigaya in laga jari doono lacag ganaaxa haddii ay laba xilli ciyaareed oo isku xigta ay ku dhamaystir yacni ay ka qayb geli waayeen Champions League taasoo la macnaa in laga jari doono 22.5 milyan oo gini laga jari doono United oo ganaaxa ay bixin doonto laakiin maadaama xaalad lama filaana lagu jiro haatan oo ay sababta caabuqa coronavirus ay tahay ma cadda haddii qodobkaani markaasi la dhaqan gelin doono gaar ahaan haddii xilciyaareedka la baabiyo kulamada horyaalka Premier League ayaa hakad la geliyay iyadoo ilaa markaasi 3 bisha April la rajeynay in dib loo soo laabto waa la rajeynaya ma la hubo iyadoo markaasi rajaduna ay tahay in la ciyaaro kulamada ay haray ee Premier League laakiin wali hubaal ma ahan waqtiga sida rasmiga ah horyaalka dib ugu bilaaban doono iyadoo khamiista markaasi la qaban doono bal warkii ka soo baxana waad la socodsiinaynayo halkaas baad kala maqli doontaan waayahay
warkan waxaanu markan kusoo qaadanaynaa laacimiinta sida xorta ba laga tegi karaa bal kooxahooda iyo weliba kooxaha ay dhibta weyn ku tahay bal aanu fiirino xagaaga inagu soo aadan marka ay bisha juun noqoto kowda waxaa furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo naadiyada u ogolaan doonaan inay la soo sixdaan loo ogolaan doono inay socdaan xidigahay u baahan yihiin sida ay iskugu diyaarinayeen xil ciyaareedka xiga oo ay sare ugu sii karci karaan heerka ay fasal ciyaareedkan ka taagan yihiin okay laakiin dhinaca kale waxaa kooxaha ka bixi doona laacibiin ay amaah kusoo qaateen markii hore iyo ciyaartooy si xora uga tegi doona oo ay dhammaatayba heshiiskooda ay markaasi kula joogeen kooxda laacibiinta sida xorta u tegaya waxa ay ka kooban yihiin kuwo markaasi iska diiday inay heshiiska ay u kordhiyeen kooxahooda iyo kuwo markaasi loo soo bandhigin inay qandaraas cusub ay seexaan yacni aan loo soo bandhiginba lixda kooxood ugu waaweyn horyaalka premier leaga dhammaantood waxaa ka tegi doona ciyaartooy badan laakiin waxaa jira laacibiinta wada hadal kula jira ayaa naadiyadooda oo ay suurtagal tahay inay qalinka ku dugan qandaraasyo cusub kooxda kubadda cagta chelsea waxaa juun 30 juun 2020 si xora uga bixi doona yaa haddii inta ka horeysa aanay arrinta la xalin laacibka muhiimka ee ugu horeeya garabka reer brazil ee ninka layada william oo naadiyo badan markaasi ay raadinaya sida markaasi sidoo kalena bedro baa baxi doona calero jiro iyo marco iyo nimankaasa ka mid ayaa dhaqaaqi doona manchester united waxaa ka bixi doona laba laacib naadiyada ay isku magaalada yihiin manchester united waxaa iyaguna markaasi isku diyaarinayaan inay macsalaameeyaan 3 ciyaartooy waxayna markaasi ay iskugu madka yihiin liverpool iyo arsenal bal waanu fiirino waryaa ragga ugu muhiimsan bal haddii aanu fiirino arsenal waxaa ka tegi kara yacni amaah uga laaban kara baa lagu leeyahay Pablo Mari amaah kusoo qaateen iyo ninka la yidhahdo Mate Maki iyo ninka la yidhahdo Dani Cablos oo amaah isaguna kula jooga raggaas baa ka laaban kara oo ka tegi karaa okay Aston Villa bal haddii aanu fiirino Pepe Reina oo amaah kula jooga ayaa ka tegi karaa Daniel Drinkwater oo amaah isaguna kula jooga ayaa ka laaban kara ragga kaleeto Porcha Patson ayaa ka mid ah Matija yani Sarkit baa ka mid ah oo raggaas Brighton bal haddii aanu fiirino Praman Kyle ninka la yidhahdo baa ka mid oo waryaa raggan aad mataqaanan oo yahay bal Chelsea haddii aanu fiirino Weli Caballero ayaa markaasi ka tegi kara oo waa u dhammaan kara heshiiskiisu William baa ka mid ah Pedro Olivier Giroud iyo Marco van Jingle ninka la yidhahdo baa ka mid ah ragga ka tegi kara oo sanadkani amaahda yacni amaah yaana dhihine heshiiskooda u dhammaanayayo iyo heshiiskooda aan laga sixino adugu raggaas bay u badan tahay inay ka tagaan Crystal Palace waxaa ka tegi kara Stephen Henson ninka la yidhahdo iyo Scott Dan ninka la yidhahdo baa ka mid ah waayahay Everton kuwaas inaga muhiim Liverpool waxaa ka tegi kara Andy Lonergan baa ka mid ah Adam Lallana iyo ninka la yidhahdo Clancy baa ka mid ah ragga ka tegaya oo loo baahan yahay ama heshiiskan ay ka siixaan ama haddii kaleba sida xorta uga tegi karaba Manchester City waxaa ka mid ah David Silva ayaa ka tegi kara haddii aysan ka sixin heshiis cusub oo haddii kaleba uu ka tegi karaaba ninka Claudio Bravo baa ka mid ah oo golkibihii ah asaguna waa ka tegi karaaba haddii aysan heshiis ka sixin oo haddii kale waa kaa Manchester United waxaa ka mid ah ninka la yidhahdo Odion Ighalo laakiin ayagu waxay doonayaan inay qandaraaska ay markaasi la wareegaan oo yacni ninka amaah buu kula joogaa marka waxay doonayaan inay markaasi si ay toos ugula qaataan ninkanoo yacni Shanghai show ya orgya ila kuwan magacooda adagka ya kuwan magaca kuwan maaragtay yacni la yidhaahdo Shanghai ya baa markaasi doonaya oo ninkan inay markaasi ayagu iska laho amaah buu ninka raggan kula joogaa oo United ah ya raggan buu kula jooga amaaho waxay doonayaan markaasi inay amaahda ay ka dhigaan yacni toos inay ka dhigaan oo kala wareegaan bay doonayaanoo inkastoo lacag badan uu ka qaato lacag uu qaato 140,000 oo markaasi uu ka qaato yacni isbuuciiba waa yahay nimanka la yidhahdo Shanghai weeyaan marka United waxay doonaysaa inay heshiis saxa oo markaas si rasmi ah inay ka dhigto ninka la yidhahdo Ighalo waa yahay markaan waxaanu ka fiirinaa bal Newcastle United Rob Elliot baa ka mid ah isaguna oo rag ka tegi kara Andy Kroll baa ka mid ah Daniel Rose baa ka mid ah Chai Koblak baa ka mid ah ya raggaas baa ka mid oo bal waa yahay ragga ugu muhiimsan bal haddii aanu fiirino horyaalka Premier League waxaa ka mid ah ragga kooxaha ugu waaweyn ka tegi karaba kuwaas bay ka mid ahaayeenoo rag kale waaweyn oo ka tegi kara kooxahoodii baa iska yarba waa yahay raggaasina waxay ka mid yihiin iyo intaan kuusoo sheegay iyo kuwo kaletaba oo yar yara oo aadan aqoonba inay ka tageen kooxahooda haddaysan si rasmiya heshiiska aysan uga sixin ama haddii kaletaba qandaraas oo si free ay ku jiri karaan oo kooxaha kale ay ku aadi karaan markan waxaanu fiirinaynaa bal waa yahay oo dhibaatada coronaviruska u geystay kooxdan la yidhahdo Valencia baan fiirino 5 ciyaartooy oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Valencia ayaa laga helay xanuunka markaasi halista coronaviruska kuwaasoo markaasi baaritaano lagu sameeyey axadii waa yahay lagu ogaaday inuu coronavirus ku qabo ninka la yidhahdo Gray ayaa ahaa ciyaartooyga ugu horreeyay ee argagaxa geliyay jamaahiirta kooxda markii maanta yacni waxa weye la shaaciyeyba inuu xanuun ku qabo
laakiin in yar kadib waxaa soo baxday 5 xubno oo kale oo ka mid ah yaa Mangala iyo Jose Gaya iyo waliba markaasi shaqaale ka tirsan kooxda in laga helay coronaviruskii oo isku hindhisan kuwa yaa saddexda laacib ee markaasi muhiimka u ah kooxda waxaa soo raacaya Paco Camarazo oo ka ah safiirka kulamada ay kooxdu dheelayso ee kala qayb gala iyo nin kale oo ka mid ah kooxdaba yacni waxa way shaqaalaha ka mid ah war-saxaafadii soo saartay kooxda Valencia ayaa waxay ku sheegtay inay 5 xubnood ka tirsan kooxdaasi laga helay coronaviruska waxayna ku tiri Valencia waxay markaasi ku wargelinaysaa in 5 qof laga helay coronaviruska kuwaas oo isugu jira ciyaartooyda kooxda koobaad iyo shaqaalaha dhammaan shakhsiyaadkani waqtigan guryaha ayay joogaan caafimaadkoodana waa uu fiican yahay waxayna yacni waxa weeyaan raacayaan tallaabooyinkii loo sheegay inay ka difaactamaan Valencia waxay kaloo ay markaas sheegtay inay markaas faahfaahin kale oo dheeri ah ay ka bixin doonto saacadaha soo socda waa yahay bal waayo aynu ka sugaynaa coronavirus kolley waa kana saameyntaas ku yeesho 5taas ciyaartooyda uu ka haleelayo iyagoo rajaynaynaa inay soo fiicnaadaan markaani bal waanu fiirinaynaa United haluhu laftarkiisu hadda aanu ka hadlaynay baanu markaanu fiirinaynaa jamaahiirta kooxda United ayaa markaasi ah kuwa markaasi cod laga qaaday oo ku go'aamiyay haddii markaasi ay doonayaan in kooxdoodu ay heshiis rasmi ah kula wareegto weeraryahanka reer Nigeria ee ninka leeyahay Odion Ighalo oo qaab amaha xilciyaareedkan markaasi kula jooga United xidiga hore kooxda Watford ayaa markaasi muddo kooban u joogay Old Trafford wuxuu ku sameeyay wax ka badan wixii laga filayay markii hore isagoo markaasi 4 gool dhaliyay 3 kulan oo ku soo bilowday shantii shaxda kooxdiisa tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaana xilli horeba markaas sheegay in kooxdiisu ay heshiis markaasi doon heshiiska Ighalo ay ka dhigi karto mid si rasmi ah haddii waqtigiisa amaahda ah uu markaasi sidan wanaagsan ku sii qaato si kastaba wargeyska Manchester Evening News ayaa jamaahiirta weydiiyay su'aasha ah miyay tahay in Manchester United ay qaab rasmi ah ula socoto Odion Ighalo xagaaga kadib cod ururintaasi 83 boqolkiiba taageerayaasha United waxay dhaheen waana doonina Ighalo waana doonina bay dhaheen Nigerianku waa shaqaysanaa ka war bay dhaheen halka 17 boqolkiiba ay markaasi diideen in kooxda ay si rasmi ah heshiiska markaasi ula saxiixato ninkani tababaraha Solskjaer ayaana dhawaan markaasi ammaan ugu qabeeyay ninka Ighalo kadib gooshii ay 5-0 ka soo gaareen kooxda Alaska oo Ighalo gool cajiib ah uu ka dhaliyay qaybtii hore ciyaarta marka ragga wakaaso Ighalo waa nawaalaya yacni Ighalo bay markaasi nagu waalayaan ay leeyihiin Ighalo waa shub waan arkaynaa bal haddii uu sidaa noqdo iyo haddii uu maradu kasii dhici doonto laakiinse wararku waxay sheegayaan in kooxda United ay doonayso inay heshiis rasmi ah ay kula wareegto ninka la yiraahdo Ighalo oo ay si rasmi ah yacni amaah markaas uga maqan kooxda la yiraahdo Shanghai Shanghai ayaa markaas doonaysa wariya Shiines baan ku hadlayay ka waran waa warkii Shiines ka waran warka Shanghai waa ka haye markan waxaanu fiir Liverpool ayaana markaasi la guddoonsiin karin baa lagu leeyahay horyaalka Premier League bal aanu ku soo celino markaano Liverpool ayaana muddo 30 sanadood raadinaysa horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League xilciyaareedkan ayayna markaasi kaabiga ay u saarnaayeen yacni qarka u taagnaayeen inay qaataan isla markan ay 2 ciyaarood oo kaliya ay ugu harsan yihiin inay ku guuleysto horyaalka ugu horeeyay ee 30 sanadood kadib ay goobayaan labada kulan ee ugu horay hanasho horyaalka Liverpool ma hubto inay dheeli doonto sababtoo ah waxaa markaasi haddaba hakad ku jira muddo bil ah sabab la xiriirta coronavirus kuba ciyaarihii dhambe loo joojiyay doodaha miiska saaran ayaana waxay qaarkood sheegayaan in ciyaaruhu dib u bilaabin karayaan bisha May ama markaasi horaanta June laakiin waxaa dhici karaya in gabi ahaanba horyaalka xilciyaareedka la baabiyo oo halka uu marayo lagu joojiyo balse waxay su'aashu noqonaysaa haddii ay tani dhacdo waa tee kooxda horyaalka la guddoonsiin doono tani hawshaani hadday dhacdo horyaalka la guddoonsiina Liverpool ayaana dabcan soo markaas shaqaysatay 25 dhibcood ayaa ka horeysa baan dhahe Manchester City oo ku soo xigta laakiin ma in koobka la guddoonsiinayo haddii horyaalka halkan lagu joojiyo sida uu sheegay Alan Shearer ayaa arrintaas sheegay oo waa ka Liverpool ayaa dabcan way soo shaqaystay 25 dhibcood ay ka horeyso kaalinta labaad kooxda ku soo xigtay ee markaas kula tartamaysa horyaalka Premier League laakiin ma aha lagu dhahay in koobka la guddoonsiinayo ama ha shaqaysto 25 dhibcood ama 45 dhibcood laakiin taas micnaheedu ma ka dhigaysoba in markaasi horyaalka la guddoonsiinayo ama hal kulan ku harsanaado ama yacni wax kale ku harsanaatee horyaalka la guddoonsiinayo ma aha haddiiba horyaalka la joojiyo sida uu sheegay baa guri Alan Shearer haddii xilciyaareedka markaas la dhammaystiri waayo marka ma jiri doonto cid ku guuleysatay iyo cid khasaartay ma jiri doonto cid khasaartay iyo cid guuleysatay ma jiri doonto waxay dhibaato iyo qalbi jab ku noqon doontaa kooxda qaarkood laakiin kama muruga badnaanayaan Liverpool haddii aanad markaas dhammaystirin ciyaaraha oo markaas inta ka harsan dhammaystirin ma jirto koox ma jiri doonto koox
doonan karta horyaalka ama markaasi mid dib uga dhici karta heerka labaad ayuu markaas yidhi alan shareer yacni koox ma jiri doonto heerka labaad u dhici doonta iyo weliba koox koob ku guulaysan doonta ma jiri doonto sababtoo ah horyaalka dhan waxa laga soo qaadaya waxba kama jiraan baa laga soo qaada ilaahay amarkii badana ya war ilaahay amarkii badan war liverpool waxbaa haysta ka war liverpool waxbaa haysta ka waran ya waryaa liverpool waxbaa haysta ka waran meeshaan aniga warkaa way weeraraa ka waran yacni mar walba waan kuu soo celcelinayaayo warbixin baanu kaaga sheegayaa warbixinta ku saabsan bal liverpool haddii ay maradu ceshan kadho iyo haddii ay ka dhacaysaba wale maradhac weyn weeyaan adigoo intaa soo shaqaysan farmino salah mani yani adigoo dhahaya iyo ufanda dhahaya oo dhahaya farxaya oo gacmaha saa ku hayay oo weliba isku diyaar waxay hatay maalooto diyaaranaya meelaha ay ku qabanayaan yani waxay ka fikirayaan maalooto yani taageerayaasha qaabkay isku kalonsiin karnaa coronavirus ama isku hindhisaan bay dhahay ama isku hindhisaan taageerayaasha haddaan meel ku kalonsiino oon horyaalka soo dhex marsiino horyaalkaas ku diyaarinayso horyaalkan coronavirus ku diidi raba soo maahan waayahay waan arki doonaa laakiin waanu arki doonaa maalinta khamiista iyo wixii soo baxa oo ay horyaalku iyo weliba markaasi dadka usaa ku qaabilsan shaqadaani wixii ay kasoo saari doonaan baanu arki doonaa waayahay si kastaba liverpool waxay keliya u baahan tahay inay laba ciyaarood oo ay badiso haddii ay markaas doonayso horyaalka premier league labadan ciyaarood see lagu ciyaara waa marka waayahay ya labadan ciyaarood see lagu ciyaara wayaan ninka la yihahdo alan shareer ayaana markaasi la sheegaya arrintaasoo waa kaa gebi ahaanba haddii la joojiyo ciyaarta ama markaas la dhamaystiri waayo horyaalka gebi ahaanba waxaa la noqonaysaa in horyaalka yani cidna aysan dhicin oo horyaalka qaybta labaad ay isu laaban iyo qayb guulaysatay oo markaasi championka usoo baxaysa ciddii marka hore championka usoo bixin ma usoo bixi doonto ciddii oo hore markaasi yani waxa weeye ku jirtay horyaalka premier league dib ugama dhici doonto yani horyaalka dambe looma wareejinayo kooxaha halista ugu jira waxaa kamid ahaa norwich baa kamid ahaa sidoo kaleeto barmouth baa kamid ahayd inay horyaalka labaad u laabtaan kuwaas baa kamid ahaa waayahay marka dhibaatadaas baa haysta kooxda liverpool kolley am sorry wallahi ya am sorry wallahi billah ya am sorry liverpool dhibaatada ku haysta ya waxaasoo kale dhibaato weeyaan reer liverpool waxaa la yidhahda yani waxay noqdeen taageerayaasha ugu yaabka badan ee ugu qosolka badan ee ugu yacni farxadda badan bay noqdeen markii ay arkeen inay kooxihii meel saarayaan kooxda nagu soo xigtay intee naga soo qabanaysa ay dheheen aniga sida sanadka hore city waana khiyaantay oo yani waxaan nusnari kaama qaadi kartaa nusnariyo hal dhibic bay nooga qaadeen marka kan haddaanu 30 dhibcood ka horeyna xagee nooga soo dhawaanayaan waxaa imaaday bahalkan coronaviruska la yidhahdo ka daran ba city mid ka daran baa imaaday oo yacni gebi ahaan ba adoo 30 dhibcood leh 30 yaalo iyo weliba 40 iyo 100 dhibcood kaa sarreynayo oo gebi ahaan ba horyaalkii qaadanaya coronavirus baa qaadan doona horyaalkii liverpool ay qaadan lahayd waayahay markaan bal haddii aanu fiirino waxyaabaha kaleeta maanta sportka aanu kusoo qaadanayno halis waxaa ugu jira uu leeyahay macalinka ama madaxweynaha real madrid valentino perez iyo ninka la yidhahdo agaasimaha kooxda kubadda cagta ee barcelona ninka la yidhahdo eric abidal ayaa halis ugu jira coronaviruska kadib markii ay la kulmeen mid ka socdo meelahaasoo ka yimaaday brazil ya waayahay real madrid ayaana walaac weyn markaasi soo fuulay kadib markii la ogaaday inuu la kulmay mas-uul uu haya xanuunka coronaviruska ah madaxweynahoodii kaasoo markaas dad badan ay yani ku laayay qaaradda yurub waa coronaviruska weeyaan xanuunkan oo dadka ugu badan uu ku laayay da-dooda ay tahay 70 sano jir yani xanuunkan dadka badan oo yani dadka uu haro yani dadka uu harowsado yani dadka uu u jilicsan yahay oo yani u jilicsan aan dhehe waxaa ka mid ah dadka 70 sano jirka ah ayaa waxaa markaasi lasoo bandhigayaa talooyin muhiim ah oo da-doodu markaas dadka da-doodu ay ka weyn tahay 70 jirka ayaana talooyin la siinayaa kuwaasoo ay ka mid yihiin inay iskood ay isku karantiilaan meel oo ay ka fogaadaan inay la galaangal la sameeyaan dadka ya si ay uga fogaadaan xanuunkaas maadaama unugyada difaaca jirkooda uu daciif yahay oo islu adkeysan karin coronaviruskan madaxweynaha real madrid valentino perez oo ay da-diisu tahay 73 sano jir ayaa walaac weyn galay kadib markii la geliyey kadib markii la xaqiijiyey in xanuunkan laga helay madaxweynaha ku-xigeenka kooxda brazil ee flamengo ninka la yidhaahdo ya mauricio gomez oo dhowaan safar ku tagay waddanka spain islamarkaana kulamo la yeeshay brace iyo madaxda kaleeto ee markaasi real muddadii uu joogo madrid motos ayaa wuxuu booqday xarunta kaydka guulaha iyo taarikhda real madrid iyadoon uu markaas uu helinayo valentino price laakiin barcelona ayaa sidoo kaleeto walaac gelisay xaaladda caafimaad ee agaasimaha eric abidal oo la kulmay ninkan muddada meelaha ku wareegaya ee soconaya coronaviruska laga helay ya marka bal aanu aragno haddii yani waxa weeyaan coronaviruska laga helo raggaas madaxweynaha iyo weliba agaasimaha ah kolley xanuunkaani waa kan haddii uu ninkan qabo waa laga helay kulankaasi kadib ninkan markay la kulmeen yacni waxaa lagu leeyahay kadib keed baa la baaray odaygan oo la yidhi meelahaas ad ka timaado waa lagu baarayaa waana laga helo layidhi waa ku dhex taagan yahay odaygii waa kana waanu kaa dhex ragnaa madaxweyneyaha
waanu kaa dhexragnaa ninka waa ku dhex taagan yahay xageed ka soo qaaday markaasuu yidhi war markaan la soo kulmay madaxweynihii yacni real madrid madaxweyne real madrid baa la soo kulmay eriga abidal ayaga laftirkooda in maradu ka dhacda laga yaaba loo sheego waa yahay xataa waxaa la yidhi qof walba oo coronaviruska yacni ku dhaco oo weliba yacni dadka kaleeto oo qof coronavirus uu la kulmay yacni aan kugu celiyo qof coronavirus qaba qofkii la kulma oo markaasi ogaada qofkii uu la kulmay inuu coronavirus uu qabay isaga laftarkiisa waxaa loo sheegay inuu meel isku karantiilo ilaa iyo muddo 2 toddobaad ah marka Valentino Price iyo Eric Abidal waxa ay u furan inay markaasi iskarantiilaan oo ay meel kooniya is fariistaan si loo ogaado bal xanuunkan inuu markaasi soo zaid u noqon doono in kale taba wararka maanta sportska kuwaas baa ugu waaweynaayo kolley kuwaas baa ugu waaweynaa oo ay ka mid ahaayeen in kooxda kuwan la yidhaahdo UEFA ay doonayso kulamada semifinaalka iyo finaalkaba inay ka dhigto hal lug oo keliya yaa laguna ciyaaro 2 magaalo inay markaas lagu ciyaaro 2 magaalo oo keliya lagu ciyaaraya semifinaalka iyo finaalka okayba hal kulan waa laga dhigayaa oo kooxuhu iska ciyaamadanayaan yani waxa laga wadaa kooxuhu ciyaarayaan marka ciyaaraan oo hal kulan baa laga dhigaya home iyo aweyna ma jiri doono sidaas bay kusoo gabagabayn doontaa baa lagu leeyahay waana qorshaha ay doonayaan qaar ka mid ah dadka ka mid ah UEFA inay markaas u gudbiyaan guddigo waka oo waxay doonayaan inay sidaa ka dhigaan isla Premier League iyo waxyaabahana kuwaas baa u furan baa lagu leeyahay marka waa kuwaas bal aanu ka fiirino qodobada kale ee maanta sportska ugu waaweyn waxyaabaha maanta sportska ugu waaweyn bal haddii aanu fiirino suuqa kaliibsiga ciyaartoyda aanu fiirino horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyo kuwa kale oo dunida ayaa hakad geliyey coronaviruska waxaa dib u bilaaban doona bisha dambe markaasi buu bilaaban doonaa suuqa kaliibsiga waddanka Talyaaniga ayaana markaasi kan ugu daran yahay ee qaaradda Yurub waxaana uu Talyaanigu markaasi uu kaga dilay coronavirus dad badan soo kalena Faransiiska Germany iyo Spain iyo Britain ayaa inta markaas dad badan ay ugu dhimanteen coronaviruska walina wuxuu markaasi faafayaa xawaaran ku sifaafayaa waxba laga qaban karin bahalkan tartamada horyaalka ee markaasi hakadka la geliyay waxay faa'iido u noqdeen ciyaaryahano dhaawac markaasi ku maqnaa oo soo kabanaya kuwaasoo marka hore ay markaasi yaraayeen fursad ay u heli doonaan inay ku soo laabtaan xilli ciyaareedka soo socda ha yeeshee yaa fasaxnay markaasi janis yacni fasaxan iyo weliba coronagan baba farxad u noqday laftirkooda waxay leeyahay anagu coronaviruskan iyo hakadkan iyo waxaan la geliyay anagu heshaa loo yihi xidigahan dhaawaca iyo kooxahoodu markaasi markaasi daraadood u dhibaatoonayaan waxaa qaarkood ay ku sugan yihiin markaasi wadamada kale oo aan ahayn kan markaasi ay kooxahoodu ka dhisan tahay sababtana waa inuu markaasi soo kabashadoodii ay soo ficnaanayso sida cimilooyinka markaasi kulaylka abaa loo qaaday oo wadamada kale loo geeyay inay soo ficnaadaan haddaba waxaanu halkaan markaasi kusoo gudbinayaa ciyaaryahanada fursadda markaasi soo kabashada u noqotay hakadka la geliyay ciyaaraha marka dib markaasi loo bilaabana rajo ka qaba in markaasi safka hore ay kasoo noqdaan ciyaartooda Paul Pogba oo Manchester United ah xidiga reer France wuxuu ka soo kabanayaa dhaawac ay markaasi ka soo gaaray aanqowga iyo lugta oo uu markaasi ku maqnaa tan iyo dhammaadkii sanadka hore kuwaasoo keenay inuu markaasi u baahdo qalin iyo weliba soo kabashooyin waqtigiisa uu ku qaadanayaa magaalada Dubai buu ku qaadanaya oo uu markaasi ku doortay cimilada kulaylka ah laakiin tababaraha Ole Gunnar Solskjaer ayaa tibaaxaya in asbuucyada soo socda uu kubad sameeyahan ku soo laaban doono garoomada hakadka la geliyay horyaalka Premier League waxa uu Pogba siinayaa fursad uu dib ugu soo laaban karayo kulamada soo haray ee Premier League maadaama talaaboyaha todobaadyadii uu markaasi tababaruhu sheegay inuu markaasi waxa way waqti uu dhimanayo ninku wax yar uu dhiman yahayba marka taasaa ka mid oo waa yahay Marcus Rashford baa ka mid ah oo ragga fursad u haysteen dib ugu soo laabtaan waxa uu dhaawacmay isagoo 19 gool u dhaliyay kooxdiisa garoomadana markaasi lagu aragtan iyo January 15keedii xilligaas oo dhaawac muruqa uu soo gaaray waayahay 22 jirkan waxa horey markaasi loo sheegay inuu seegi doono ciyaaraha ka harsan xilli ciyaareedkan sidoo kalena waxa uu markaasi shaki ku jira in markaasi dalkiisa uu kala qayb gali doono ciyaaraha Euro 2020 oo isaguna Horyal 2020 Euro 2020 maba dhawaba June iyo July baa laga fikiraya in laga dhigi doono oo ay ka dhigaan FIFA ay ka dhigto waka marka laakiin tababaraha Ole Gunnar Solskjaer bishii hore sheegay in Rashford ay suurtagal tahay inuu soo laabto ka hor inta aanu xilli ciyaareedkan dhamaanin baa macquul ah inkastoo uu qiray inay adag tahay laakiin wuxuu fursad ku soo laabasho uu heli karaa inta ka harsan oo markaasi bahalkan hakadka la geliyay Rashford weeyaan marka fursad wuxuu haystaa inuu soo laabto muddada uu hakadka la geliyo bisha ah wax weyn bay u noqon doontaa Marcus Rashford inuu soo laabto wax weyn bay u noqon doontaa raggaas waxaa ka mid ah Harry Kane baa ka mid ah oo 6 daqiiqo baa noo dhiman Harry Kane baa ka mid ah maalintii sanadka cusub ee kooxdiisa Tottenham la kulantay khasaaraha hal iyo eberka ah oo Southampton iska hor yimaadeen ayaa Harry Kane uu markaas ugu dambeysay garoomada waxaana intii ka dambeysay oo dhan buu jiifay dhaawac dartiis buu jiifay oo
toddobaadka hore ayuu dib ugu soo laabtay tababarka waxaana uu bilaabay inuu si xorriyad leh u ordo dhibaato la-aan kubadda uu markaasi ku soo laabto yaa bishii abriil marka uu horyaalku dib u bilowdo waxau harrikan markaasi uu ka mid noqon doonaa naadigiisa waana xilliga marka horeba markaasi loo qorsheeyey inuu kusoo kabto yaa marka waa faa'iido badan baa ugu jira ninka la yihahdo harrikan oo soo laabanaya isaguna ninka la yihahdo son baa ka mid ah oo ragga markaasi janis ku haysta sports dhabarka ayay markaasi yacni oo dhabarka ayay ka jabtay baa lagu leeyahay waa tottenham yacni waxa way dhibaata gaadhay markii uu son ku biiray liiska dhaawacyada laakiin isniintii ayaa markaasi ay ku beegan tahay waqtigii la filayay inuu garoomada kusoo laaban doono laacibka reer korea oo yacni waa maantay ku beegan tahayba laacibka reer korea oo gacan ka jabay waxa uu fursad u haystaa inuu markaasi 2 toddobaad si fiicnaado uu qaato tababarka yaa uu janis fiican buu haystaa ragga kaloo ka mid ah inay janis ku haystaan waxaa ka mid ah Alisson Baka baa ka mid ah golayaha koobaad Liverpool waxa uu markaasi 2 toddobaad ku sheegay ciyaaraha 2 kulan oo horena ayuu markaasi ay u dhaceen oo markaasi maqnaa sida midkii Atletico Madrid oo ay maradu ka dhacday oo Adrian uu waashayba markii horyaalku bilaabay bishii dambe yaa markii uu horyaalku bilaabay oo bishii dambe ayuuna kusoo bilaabanaya ninka leedo Alisson Baka Liverpool waxay dib u heli doontaa Alisson oo tama xidigaha kale dhaawaca ayaa iyaguna markaasi fursad u noqotay fasaxa waxaana ka mid ah Tammy Abraham Eden Hazard iyo Luis Suarez Ousmane Dembele raggaas ka mid ah oo fasaxa la geliyay coronavirus ku geliyay laakiin Liverpool gorma Alisson usoo kaca Alisson usoo kaca Alisson wuxuu u fiicnaa in uu ka hortago Atletico Madrid isagoo caadi ah laakiin waa kan la leeyahay ayaamahan iyo waqtigan buu ku soo laabanaya waliba markuu bilaabanayo horyaalku oo dib la isku soo laabanayo waa April okay marka Alisson wax muhiim u ahaa Alisson habeenkaas wax muhiim u ahaa ka war Oblak baan habeenkaas u cadareeyay oo waxaan caadi ahayn sameeyay anigu waaba aamin waayba Oblak wuxuu sameynayo yacni wuxuu badbaadinayo Oblak waan ka yaabay ba أنا waxaan isiri xataa Alisson kuwaas ma badbaadin karin baan isiriba yaa inta janis lagu abuuray inaba caadi ma hayno xataa wuxuu ku guulaystay golkiibaha yacni isbuuc toddoba yacni يعني اسبوعي اللي صار في هوريالك العياري الشامبيونز ليغا ayuu ku guuleystay asbuuc yani golkiibii ugu fiicnaaba ku guuleystay oo waa ka waxa weeyaan wuxuu ku guuleystay xataa soo kaleeto waayaha waa ka marka barnaamijkii baanu intaas markaasi kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal oo waxaanu markaasi fiirinaynaaba qodobada kale ugu muhiimsan waxaana kaloo ka mid ah waxaa ka mid ah kooxda Arsenal waxay doonaysaa inay markaasi oo heshiiska yani waxay doonaysaa Arsenal inay markaasi fasaxdo ninka leedo Aubameyang maadaama kooxda Barcelona in badan goobayso yaa ninka Express ayaa markaasi ku waramaysa in Arsenal ay diyaar u tahay iibinta waryahanka Aubameyang haddii ay guul dareystaan yaa inuu aqbalo heshiiska uu markaasi ay ka dalbanayo يعني heshiiska ay ka dalbanayso inuu kordhiyo haddii uu diido waxay diyaar u yihiin inay gadaan ha yeeshee naadiga Barcelona ayaana doonaysa inay markaasi iska soo gabagabayso guud ahaan xiisihii ay u qabtayba ninka leedo Aubameyang Blaugrana ayaana ka fikiraysa inay xoojiso weerarkeeda waxaana gabi ahaanba ayaa waxaana markaasi ay baadigoob ugu jiraanba kabtanka kooxda Arsenal kaasoo xilaahiradkan dhaliyay 20 gool kadibna 32 kulan uu saftayba Aubameyang ayaana Ganas markaasi kula jiray qandaraas ku eg dhamaadka xilaahiradka soo socda waxaanu si xoog leh markaasi loola xiriirinayaa kooxda Barcelona iyo waliba Inter Milan inkastoo kooxda ay markaas samaysay markaasi xoogaa horumar wanaagsan oo markaas tan iyo markii loo magacaabay tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta haddana kooxda uma muuqato mid markaas ay usoo bixi karto UEFA Champions League sanadka yacni tartanka soo socdaba Aubameyang ayaana markaasi doonaya in mushaarkiisa oo hadda ah waxa weeyaan mushaarkiisa oo hadda 300 oo kun oo gini toddobaadkii lagu soo kordhiyay loo kordhiyay doonayay 30 loogu daro taasoo dhalisay in markaasi wada hadal ay la furto kooxda Barcelona yacni wada hadal markaasi heshiiska lagu kordhin lahaa ay joogsadaan yacni Arsenal waxay doonaysaa inay wada hadalladii ay doonaysaa inay heshiiska u kordhiso Aubameyang inay joojisaba sababtaa wuxuu doonaya ninka in lacagta loo badiyo Arsenal maradaas ma gashan karo yacni kabtaa ma gashan karo ka wadnaa ha yeeshee baarka ayaana u sheegtay Aubameyang inuusan isagu ahayn dooqa koobaadba maadaama ay diiwaankoodu meesha ugu sarreysa uu ku qoran yahay magaca laacibka Inter Milan Lautaro Martinez xidiga kooxda Paris Saint-Germain iyo Neymar oo ay doonayaan iyo kooxaha ay markaas soo cishtaan bay doonayaan raggaas kooxahaas يعني kooxda Barcelona raggaas ay doonaysaa inay kasto si kastaba ha ahaatee Aubameyang wuxuu markaasi yacni xiise kale ka helayaa kooxda Inter Milan oo ay diyaar u tahay inuu markaasi qarashka ay ku bixiyaan oo yacni qarashkan ay bixiyaan Inter Milan baa diyaar la abaal leeyahay haddii markaasi ayba Arsenal farahooda uu ka baxayo ninka la yiraahdo Aubameyang waxaanu soo gaarnay xilli ugu sii dambeysay waayahay
warninka neymar haa baris sharman weydeysa waxay yidhaahdeen obi ninka la yihahdo baris sharman waxay doonaysaa kaliya imbebe inaan la gadan waxay leeyihiin imbebe yaan lagu fakerin waa baris sharman imbebe yaan lagu fakerin inaan gadno laakiin neymar waa naga diyaar bay leeyihiin war nin kale usoo baxay rumaa idiin sheegaya asbuucyadii kahor maxaan ku dhahayay yacni ninka la yihahdo neymar waxaaba ka soo dhexbaba intuu meysi ka cararayay cunugan gaabama wax laga qaban karinba habeen dhaweyto gool u dhaliyey waa laga yaaba bartamaha garoonka inta ka qaato oo saa ugu cagwareejiyo bartamaha garoonka uu ninka saa ugu cagwareejiyo oo la fakado oo mid kale saa u agmaro boqolkiiba intuu olata uu ka dhalanayaa ilaahay amarkii oo xataa ilbirqsiyu ka dhigaya wixii oo dhanba marka neymar iyo imbebe ayaanba xilligaani isku mid ahaynoo neymar bay doonayaan inay iska iibiyaan oo ay ku iibiyaan 150 milyan oo markaasi euro bay doonayaan inay ku iibsadaan barcelona ayaana markaasi kolleyba ay wax fursad u noqon doontaayo ninkan baana marka hore joogayba 250 milyan oo euro haatana laakiin waxay doonayaan inay ku gataan baris german 150 milyan oo euro waaya warbixinadii maanta sportska kuwii waaweynaaba kuway haayeen oo yuusuf cabdiraxmaan alteso baa kula socodsiinayay soo barnaamijku waa bashiir yuusuf nadaara iraad baana idinla socodsiiyey iraad baana markaa idin farsameynaya aadan dhehe waaya saaxiib yaaltan ay kulantideena dambe nabadgelyo